aad baan uga xunnahay in aan maanta Boorama joogno garoonkii ugu weynaa Booramana uu xidhan yahay waxay sheegaysaa daciifnimada iyo taagtarnaanta wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo xisbiga kulmiye sida ay walaalada hore sheegeen waxay ahayd dhalinyarada gobolka Awdal in garoonkan iyo garoomo kale loo dhiso si loogu sameeyo motivation mar haday ku soo guuleysteen koobkii gobolada waxa loogu abaalguday in lagu raahdo ma geedaan in garoon la dhiso ma geedaan in motivation la sameeyo ma geedaan in horumarin la sameeyo taana waxa sabab u ah wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Soomaaliland waxa sabab ah barnaamijka xisbiga kulmiye waxa sabab ah xukuumadda maanta joogta aad baan uga xunnahay in garoonkii weynaaye Boorame uu dooxu galo uu daadku galo uu qashinku buuxo uu deyrku qayb dunsan tahay uu muddo sanad iyo 2 bilood xidhan yahay hadal badan ma jiro saacada laga bilaabo xisbi ahaan kalsoonidii aan ku haynay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha waan kala noqonay markaan aragnay dayaca iyo diifta iyo daalinimada ay kula kacayso xukuumadda kulmiye dhalinyarada gobolada Soomaaliland oo dhan gaar ahaan gobolka Awdal aad baan uga xunnahay in garoonkiina ka xidhan yahay markay halkan tartan ku qabteen ay laba dhalinyaro ku dileen garoonka dhexdiisa taasi baan u diraynaa aad iyo aad baan uga xunnahay oo meesha kaliya ee cid ku dhinteen Awdal ee wasaaraddu tartan ku qabatay yaan la hilmaamin xumaanta iyo xanafta iyo xurgufkaasba halkan ay ka dhaceen xisbiga kulmiye qayb ka ah wasaaradda qayb ka ahayd magdhow iyo garowshiyana dhalinyaradii lama siin aad baan uga xunnahay in garoonkiina xidhan yahay walina ay ku faanayaan horumar baan sameynay horumarku waa garoomada xidhan horumarku waxa weey xashiishka horumarku waa musuqmaasuqa horumarku waxa weey dumiska garoomada la duminayo iyo meelaha la iibsanayo garoonkan mid baan sheegaynaayo qorshaha kulmiye waxa ku jira in la iibinayo la xaraashayo markay dhalinyaradu niyad jabaan waa la xaraashayaa xaraashku ku jira kawaanku yaala aad baan uga xunnahay dhalinyarada gobolka Awdal waa dad wax bartay waa dad reer magaala waa dad aan lagu guuri karin waa dad aqoonta Soomaaliland hogaaminaya marka waxa leenahay halganka aqooneed ku jirtaan iskaga kiciya dulmiga kulmiye iyo diifta ay badeen iyo dubudhaca ay badeen gobolka iyo Soomaaliland oo dhan aad iyo aad baad mahadsantiin